oo kamid ah meelaha dadka ugu badan ay ka codeeyeen sidoo kalena goobaha ugu badan ee laga codeeyay ay ku yaalaan waxa codadkooda tirintooda la bilaabay subaxnimadii hore ee saaka maxaad warbixin naga sii kartaa in la dhameeyay codadkii tirintooda iyo sidoo kale inay wali socoto bal wararkii ugu dambeeyay inooga waran gobolka Maroodijeex oo ah gobolada ugu codka badan Soomaaliland gobolka lahaa 270 goobood oo cod bixinood sidoo kalena ay ka codeynayeen 200 kun oo qof in ka badani gobolkan waxa uu yahay gobolka haatan lagu jiro tirintiisa gobolka Maroodijeex saad arkaysaan imika halkan goobta lagu tirinayo waa halka xafiiska Mingsing waxa jirtay in uu jiro mar walbaba deganaansho iyo hab isku tanaasul iyo wada shaqeyn inta badan u dhaxaysa tiimamka meesha jooga walaal xisbiga wadani saraakiishiisa ku jira tirinta codadka gobolka Maroodijeex ay iskhilaafeen sarkaal gudida doorashooyinka la taliyo ah taasina ay keentay in dibadda u soo baxaan oo xataa xisbiga u laftiisu ay saraakiisha ugu jira ay dibadda u soo baxeen haddana gudoomiyaha xisbiga u cido meesha yimid waxa uu sheegay in loo baahan yahay in tirinta ay ku noqdaan saraakiishiisu sidoo kalena xisbiga wadani saraakiishiisa sare yimaadeen goobta iyaguna ay goobta ku noqdeen tirintuna ay haatan ilaa si fiican u socoto waxaana la sheegayaa in waxyaabaha muhiimka ee gobolka ka taagan ama gobolka Maroodijeex uu yahay sanaadiiqda uu gobolkan lahaa oo badan tirada codadka oo iyaguna badan inay noqon doonto in waqti lagu bixiyo in tirintaasi lagu soo gabagabeeyo laakiin xisbi walba sida ay gudida doorashooyinku u sheegeen Hoon Cable TV 10 xubnood ayaa goobta u jooga 10ka xubnood baana xogta mar walba soo gudbinaya oo xogta keenaya oo xogta xisbiyadooda u gudbinaya balse xisbiyada aan isku daynay inaan wax ka weydiino xisbi walba oo ka gaabsaday xisbi walba inuu xogna siiyo xisbi walba inuu ka hordhaco fursadda ama tirada ilaa haatan la tiriyay balse waxay isku dayayaan inuu xis walbaaba si deganaana oo ay ku jirto mas'uuliyadi uu u dhaqmo iyagoo isticmaalaya amaba eegaya xeerka loo dhigay ee gudida doorashooyinka qaranku ay u dhigeen taasi ay ixtiraamayaan ay mar walba sheegayaan inaanay jireynin natiijo dibadda u soo baxda oo ay ku siinayaan balse muraaqibiinta u joogay asxaabta qaranku ee goob joogayaasha uga ahaa inta badan xogaha ay helayaan xisbi walbaaba sidiisa gaarka buu ogiyay oo taasi ay ogyihiin asxaabta qaranku